Jamciyadda Tawciya Al-Islaamiya ayaa soo qaban qaabisay kulan muxaadara oo dhalinyarada lagaga wacyigelinayay tahriibta iyo mukhaadaraadka laguna toosinayay yaqiinta iyo ku xidhnaanshaha Rabbi. Kulankani waxaa ka soo qayb galay maariyaha telefishinka qaranka, taliyayaasha saldhigyada Ibrahim Koodbuur iyo Daloodho, culumaaudiin, arday iyo dadweyne aad u tiro badan. Kulankan oo ka dhacay garoonka Xawaadle ee magaalada Hargeysa. Saacad Maxamuud Sheekh Muuse oo kulankani ku hadlayay afka Jamciyadda Tawciya ayaa sheegay in la aasaasay sanadkii 2001 ay nala shaqeyso jamciyaddu dugsiyada sare ee dawladda, madaariska iyo kuwa kale ee gaarka loo leeyahay. Imikana waxaa la isku xidhayaa buuri 20 dugsi hoose dhexe oo dugsiyada dawladda ah oo jamciyaddu ka shaqeyn doonto. Sheekh Maxamed Aadan iyo Sheekh Ismaaciil Cabdilaahi ayaa iyaguna ka hadlay qiimaha ay leeyihiin dhalinyaradu inay yihiin mustaqbalkii dalkani. Sidoo kalena waxay kula dardaarmeen dhalinyarada inay ka dheeraadaan tahriibta iyo mukhaadaraadka iyo balwadaha xunxun, dhalinyaraduna ay ku xidhnaadaan masaajidada Rabbi ayna bartaan diinta Islaamka. Maariyaha telefishinka qaranka Khadar Xasan Cali Gaas iyo taliyaha saldhigga Ibrahim Koodbuur Diin Qale ayaa iyaguna madashani ka hadlay ayaa waxay waalidiinta kula dardaarmeen inay ka warhayaan dhalinyarada iyo ubadkooga waxa ay falayaan. Fuad Aadan Maxamed, gudoomiyaha wanaag farista iyo xumaan reebista degmada 26 Juun oo madashani ka hadlay ayaa ku dheeraaday shaqada ay degmada ka qabtaan iyo siday u fuliyaan iyo ka shaqeynta wanaag farista. Gabagabadiina ardayda jamciyadda qaybka ka ah oo ka kala socday dugsiyada hoose dhexe ee dalka iyo madrasadaha ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Sidoo kalena dugsiga Sheekh Cali Ibrahim ayaa madashani ku soo bandhigay shamacyo, kareemyo iyo baalasho iyagu ay sameeyeen.